بسم الله الرحمن الرحيم halkaad ka daawanaysaan waa radio maqal oo alaabadii ka yimaada magaalada Oslo dalka Norway maanta waxa igu martiya xasan waraab cadde oo dadku intooda badan ay garanayaan marka xasan ku soo dhaw radio maqal iyo Oslo aad iyo aad waa ku soo dhawahay dhowr mar horena waad ku baadsantiin haddana waa mahadsantiin oo ku dhaway ma hado kulay weegan waa weegay waxa la yiraahdaa xorriyadda Soomaalida marka 6 sano ka soo wareegtay bal marka maxaad oranaysaa dadweynaha Soomaalida ku xiran radio maqal ama ina daawanayaba wallahi horta dalilata ka jiro waa maalintii ay xorriyadu qaateen gobolada waqooyi ee Ingiriisku gumaysan jiray 1 Julayna waa maalintii ay Talyaanigu isaguna uu xorriyada siiyay koonfur kadibna ay midoobeen labada jamhuuriyadood ee la kala gumaysan jiray marka 6 ka Juun waa insha Allah jimcaha waxaan filayaa aniga iyo gruubo badan inaanu ku sagootin doono orod 60 kilomitir ama socod 60 kilomitir qof walba intuu awoodi karo si activity-ka waqtigan xaadirka lagu jirana ay dadku activity badan u sameeyaan taana maanta diyaar garow badan baa laga sameeyay waxaan rajaynaynaa in wiiga soo socda amba jimcaha ilaa iyo arbacada hawshaas ay dhici doonto marka maalintaas waa maalin qaaliya 6 Juun maalintuu Ingiriisku ka baxay gobolada waqooyi amba Hargeysa oo hadda ay waxay dhashay marka 18 May Somaliland saxasano bal marka laga soo bilaabo waa 60 sano maantii horeysay magarasa calanka laga tagay magaalada Hargeysa marka bal 60 ka sano barka waran miyo maanta halka marasa Hargeysa wallahi niyo 60 ka sano de waxa way dunidii waaga calanka qaatay ama qaatay xorriyadda de wadamo badan oo Afrikaan ayaa jiray مثلا amba ka dambeeyay amba waqti la qaatay de maanta halka Nairobi oo kale halka maraysa wadiga arkaya wadamada Afrikaanka ee badan wadiga garan kara waxaan filayaa uun 30 sano oo de khasaaray ayaa meesha ku jira 30 sano ee xorriyadda ay qaatay hore ee dhexe intii siyaad bare intii dagaaladii sokoya dhaceen haddii waqtigii siyaad bare xataan eegno laba warshadood oo kaliya marsan kara waddankaas oo dhan waa uu ka hirgalay waa laamiga weyn ee halka ka baxay ilaa Muqdisho taga iyo warshada sawirka oo goor dambe ay ahayd marka waxaan oran karaa dib u dhac weyn waxaan filayaa intan dambe imika ay dib u la soo noqdeen imika ay iyagu sida gaar ah jamhuuriyadoodii la soo noqdeen waxaan filayaa hadda inay wax ay ka awood badan yihiin 30 sano dambe ay ka muuqaal badantay markaad magaalada eegto magaalada duntay ay dheedkii oo haddana saa u dhisantay wax yar maahan marka waxaan qabaa in laga sii shaqeeyo oo halka laga sii wado oo golaha deegaanka mar walba jooga ay aad iyo aad ay isku tacalujeen horumar lagu tartamo horumarka taas ayaan filayaa in Soomaaliya oo dhan u tahay haddii aan dhinaca kale kooda luuliyo waa iyada laftigeedu waxba kama duwana waa 6 sano ku dhowdahay marka maadaama ku soo joogi jirtay xamar ee dhulkaasi bataalifteeda ka waran waa kooda luuliyo waa maalintii la israacay labada dalba israaceen ayaga naftoodu de waxa weeye waa maalin farxad la weeye waa maalin ay u dabaaldegaan loo dabaaldego inkastoon hadda midowgii aan looga dabaaldegaynin Somaliland waxaan filayaa iyagu way u dabaaldegayaan de waa maalin qaali ku ah taa aan ku sheegay mid lamid ay soo mareen civil war way soo mareen and still ilaa imikana in lagu jiraan u malayaa de wadiga garanaya dhinacna waa shabaab dhinac waa dawladii dhinac waa marka maamul goboleedyo oo aad mataqaan wadankii ayaa dhowr maamul goboleed la hataa iyaga dhaafdooda aan isku fiicnay marka waxaan isleenahay waxa ku fiican tahay in meel qura la isku yimaado ku roontay oo marka ay horena u mari karaan marka waxaan rajaynaynaa in tallaabo wanaagsan ay qaadaan imika way qaadeen meel badan xagga dadka markaad eegto in dadku waxay qabsadeen waxaad arkaysaa imika Daynilo kale maalin dhaweedo aan arkayay meelaha dalxiiska waxaan filayaa in horumar badan laga sameeyay xagga dadku ay sameeyeen waliba ganacsatadu haddaan ku soo noqono 6 Juun maxaa keenay xasan 6 Juun iyo 18 May in 18 May ku xoog mudnaatay 6 Juun ma isleedahay 6 Juun mudnaanta lama siiyo 6 Juun waa maalin runtii qaaliya waa maalin la doonayo mudnaanteeda in la siiyo oo maalintii isticmaalku uu ka baxay dalka oo xorriyadiisii ay qaateen waa maalin la doonayo mudnaantu weyn in la siiyo ta kale keentay in ma garanaysaa 18 May de haddana halgan kale galeen
halgankaa kale ay galeen ee ay ku dhawaaqdeen maalinta 18 May ayay markaa noqonaysaa 26 June 18 bay dhashay 18 waniga kugu bilaabay 18 May bay dhashay markaa waa maalin taariikh leh runtii in la xusano u baahan laakiin tan ay la soo noqodkay imika ay gaar u dhisayeen ayaan u maleeyaa in ahmiyad weyn la siiyo isku soo baxa iyo calamada iyo hadwaa la kuroonye laakiin anu waxaan qabaa in 26 June ay mudan tahay mudnaanteeda maalintii xorriyadda ay tahay waa maalin qaaliya waa maalin dadka oo dhan ee reer Soomaaliya degan midaynaysa wey haddii kale waxooga ka yar baxna arrintaasi waxaa jirtay laftigeeda 43 sano ka hor waxaa qaadatay xorriyadda waddanka Djibouti oo iyaga laftigooda loo dabaaldegay weekend balegana maxaad oran lahayd dadka Djibouti waa ayagana hambaliyo waa toddobaadka xorriyadda Soomaalida ayaan hadalkay ku bilaabay 27 June weeye ayaga naftoodu halgan badan baynu soo maray laakiin ayagu hadda ilaa iyo hadda so far there's no civil war ma jiro waanan uga digaynaa dadkooda inay ilaashadaan nidaamkooda ilaashadaan oo aanay sidii marxaladii ay soo martay Soomaalidu ee burburka ah aanay marin wadada oo hadduu isbedel imanayana si peaceful ku yimaado meel fiicanna waa marayaan oo meesha aad arkaysay hadda shirarka u qabanaysay Soomaaliya iyo Somalilandba waa meel horumartay waxa degan intaasoo dawladood ciidamadoodii baa degan waxaana aan filayaa in iyagana aan u rajaynayaa ciid wanaagsan oo 27 June iyo horumar wanaagsan mar haddaad xustay in shir lagu qabanay waxa dhacday waxa jira inuu shir ka dhacay halkaasi ay ku shireen magaraysa Soomaaliland iyo dawladda federaalka Soomaaliya bal dad badan markaa waxa ka soo baxay waxoogaad moodaa in dad ku wareersan yihiin marka xasan oo banadaabtay siyaasiga maadaama muddo badan de arrimahan aad soo joogtay bal maxaad sidaad ugu jeclayd dadweynaha aan fahmin ee ilaaha ku dabaqsay wixii ka soo baxay meeshaas waan soo gaabinayaa una horta waxa weeye wada hadal loo baahnaa waa muddo dheer soo jiitamay wadahadaladii hore ee soo bilaabay 2012 ee ka dhacay Ingiriiska iyo Turkiga iyo Imaaraadka xukuumaddan Musabbixi ka horeysay ay soo bilowday Axmed Maxamed Siilaayo go'aamo ka soo baxay waxa dhacay inaanay sidii la doonayay u hirgelin midna waxa kamid ahayd in aviationka duulimaadyada kamid ahaa wad arkaysay nimankii aan la soo kocay ee aan garanayo ee aan la soo koray hal mid baan ku aqaanayo realistic maahan labada wadanna waxay ku kala bedelayeen qolana waa realistic oo runta ku dhaqmaan oo u kala leexanayso qolana waa ciyaal ziyaan dirahnayo isagoo wuxuu doonaya iyo wuxuu raba inuu sameeyo kala duwayn marka anigu waan la aqaanaa rag badanna way la yaqaanaan marka taasay u dhici weyday inay arrinkii hawada leexsadaan wixiina ay soo waayaan marka wada hadaladan iminka waatan la iskugu soo noqday la wada fadhiistay wixii hore aynu ku wada hadalnay maxaynu ka socodsiin karnaa guddiyaal la sameynaya guddiyadaas ayaa markaa gudagalaya waa la iskugu imanaya khubara imanaysa sidii markaa wixii loo wada habeen lahaa ayaa rajaynayna wixii 45 cisho ka dambeeyay la iskugu yimaado balse hal qodob ilaa shalay laga doodayay oo dood badan keentay ayaan doonayaa iftiimiyo qodobka isku socodka socodku waxa weeye awalba la isku wada socday dadku way imanayeen ardayda ayaa timaado oo joogta ganacsatada joogta waayeel badan baa jooga caafimaad ayaa loo yimaadaa waa la joogaa waxa la isku hayaa waxa weeye waxyaabo in la qeexa u baahan sida aan maqlayo kale waxa kamid ah sportiga adal sportigu siyaasaddu galaa fanku siyaasaddu galaa dadku ma galaan bay yiraahdaan laakiin uu galaa haddii laba dal culuubaan waddankan wuxuu ka joojiyaa waddanka kale inaan ciyaarna aanay la ciyaarin marka unless aanan ku kala bixin anigu waxaan qabaa wixii muhiimad ah ee laga dhex arkayo markaa isdhexgal iyo wax u eg in la kala joojiyo laakiin isu duulimaadka isku socodka waxaan qabaa in isku socodka la qeexo oo weliba qolo waliba ee baasaboorkeeda qolada kale u ogolaata inay ku tagto waddankooda waa inuu sidaa u qeexnaata wax wal waana kulli way socotaa waa wax in lagu degdegana maahan isma lihiya halka adna doctoressa adna ilaahay kor ha ka dhige madaxeygana cimrigeeda Allah raajay meel ay fadhido in la khiyaani karo ilama ahan marka dadku waxa la kalsooni buuxa qabaan hana ku qabaan madaxdooda iyo guddigooda
xasan waxa jirta markii madaxweynuhu ka soo noqday ama shirka ay ka tageen madaxdii warar kala soo baxay haddana oo meel ay yimaadeen ilaa dadka daa isweydiinayaan marka ma la oran karaa dadweynaha waxa ku jira magaranaysa dadweynaha in waxoogay wax la qaranay inay jiraan isma lihi wax la qaranayna jiraan sababtoo waa markii ugu horreysay aan arko madaxweyne intuu yimid dibad ka yimid intuu haddana isagoo aan fadhiisan shir jiraa'id qabtay uga warramay wixii soo baxay soo dhacay marka isma lihi aniga waxbaa la qarinayaa dee xalaal waxa la qashaaba muxuu dadku waa kuwii sheegay waxaana waa isku socod waxa kaliya dadku hadlayaan waxaana weeye in la aamino dadka aynu u dhiibanay nidaamka haddii wax ka qaldan ay soo baxaanna shacbi weynuhu inay ogolaanayaan u malayn maayo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland wuxuu qiray wixii soo baxay in waxyaabo badan qalad ku jiraan marka ma sida marka loo aamini kara marka madaxda cankaas wixii qalada kulliba qaadan maayaan way kan manaaqishaynayaan dee kulley guddiyaa imanaya dib bay iskugu soo noqonayaan 45 cisho wixii qaldan way ka manaaqishoonayaan dee waa kulley horaa loo sii soconaya hore ayaa loo soconaya dib loo socon maayo xasan oo dad badan baa waxay aaminsan shirkan lamid ah shirarka carabta oo kale waayo markii hore dadku isdhex socdeen waa la kala ganacsanayay wax ummadda kala xiriir ma jirin maxaa soo kordhay maanta waxa soo kordhay carabka in laga sheego waxa weeye dadku qoloba sibay u doonaysaa qolo waxay doonaysaa inay siyaasiyiintu ay isdhex barto ay socoto fanaaniintu isku socdaan madax dhaqameedku isku socdaan waxaana qaba anigu khibradda weyn ee aanu leeyahay dadkayga reer koonfurta inay jecel yihiin in ay abwaaniintoo kale helaan ama fanaaniinta helaan si halkaa ay uga raadiyaan wax la yidhaha midnimo laakiin anu waxaan qabaa dhaqanka marka laga hadlaayo inaan labadaa arrimood sidai berigii horeba u cakirnaayeen amba siday ahaayeen ilaan intaasoo fannaan ayaa intay tegeen ayaa la xidhay oon ogahay haddana waxaan qabaa inay halkaa ku taagnaato iyo inay golayaasha qaranku ay ka soo saaraan go'aamo waadaxa oo waxa lagu heshiiyo iyo waxaan lagu heshiinba qeexaya oo dadku ay halkaa ma garanaysaa ay ugu kala caddaato xasan waxaa jiray haddaan ku noqonay khudbaddii ay jeedeen labada madaxweyne khudbaddii uu jeediyey Muuse Biixi waxay qaadatay ilaa 20 minute waxaana ahayd ilaa 4 page tii farmaajana waxay ahayd wax xogeen 2 minute meelahaasi marka halka laftigeeda maxaa ku jira aniga halka waan ku sheegay qofna waa soo diyaar garoobay waa realistic wuxuu doonayaa in taariikh iyo wax soo jiray iyo halgan inuu ummadda iyo dadka caalamka ay meesha fadhiya inuu maqashiyo deenna wuxuu doonayaa inuu sida hadda aan kuu sheegayay in habkii iska magaranaysaa ciyaalsiyo iyo saaxiibka iyo walaalka iyo saaxiibka iyo waxba kuma socdaan waxa ku socdaan inaad la timaado mabda waxaad doonaysaa dadku inay midoobaan waa inaad keentaa afkaar waxa ay ku soo noqonayaan wax danay ugu jira inaad caddayso oo markaa aad tustood iibiso waxaad doonaysa inay ku soo noqdaan markaa taana farmaajo wuu la waayey laakiin madaxweyne Muuse Biixi isagu wuu la helay waana warqad ay maanta wada haystaan caalamka meel kastoo la joogo oona qabaa inuu halkaa 2 gool iyo eber diray waa sax si fiican baad sheegtay su'aashu dambeysana ku weydiinay xasanow waxaa jirta waxa la yiraahdaa inta badan magaranaysa midnimada Soomaaliya waxay tahay Hargeysa اعترافكنا وحيا لا مقدش haddana waxaad moodaa in aad loo kala fogeeyay baad moodaa xasanow markaa isku soo gabagabayso soo eegto xalku muxuu noqon doonaa I think xalku inuu aakhirka ku soo gabagabay doono referendum Soomaaliland laga qaado baan anigu arkaa inay dhinac walba ay qeexin karto dadka reer Soomaaliland gees ilaa gees in referendum uu ku soo gabagaboobayso baan u haystaa sababtoo ah qoladana waxay doonayaan midnimo iska magaranaysaa oo soo noqda qolana waxay doonaysaa Soomaaliland oo calankeeda qaad I think inay faa'iido badan ku jirto Soomaalidu haddii ay sida Djibouti oo ay saddex dalba aynu noqono Djibouti Soomaaliland iyo Soomaaliya inay iskaashanayaan cod yeelanayaan xiriir wanaagsan yeelanayaan saaxiibtinimo yeelanayaan I think inaan waxba ku jirin baan u haystaa hadhowna waxa laga yaabaa inay haday generationada dambe inay midoobaan iyagu waa laga yaabaa oo de waxa iman doona caalam cusub iyo generation cusub oo aqoon leh oo dhinac walba ka dhisan baa iman doona taa haddii ay u arkaan de waa iman doona laakiin maanta inay taasi xal yahay baan u haystaa dad baa waxay leeyihiin markii meesha la tagay waxba ka soo bixi waayeen marka horeba labada madaxweyne diyaar uma ahayn wax ku yimid cadaadis international community-ga siba ra'iisul wasaaraha Itoobiya marka ra'iisul wasaaraha Itoobiya muxuu ka rabaa marka meesha isaga TC baaba haysataba markaad gudaha dalka Itoobiya aad eegto iyo xaaladda ka jirta gudaha markaad tidhaa maalin dhaweydba markii uu waramayay nin nidaamkii hore aad uga tirsanaa oo Tigreega ah oo aad u waramayay gudaha waxa ka haysta وانا nin dhalinyaro oo la siiyay dalka Norway lagu siiyay peace muxuu ahaa Nobel Peace Prize joogteenba
waxaan isleeyahay isagu wuxuu doonayaa inuu geeska Africa integration ka aasaaso isku soo dhaweeyo amba uu hadiyada la siiyay uu sii ballaarsado ama sii xoogeeyo laakiin isma lihi meel buu ku gaari karaa markay dadka reer Soomaaliland meel bay taagan yihiin dadka reer koonfurna meel bay taagan yihiin amba Soomaaliya waxaan qabaa inay baashu noqon doonto jugjug meeshaada jooga aakhirka referendum ku dambeyn doonto kaasi wuxuu ahaa xasan waraab caddo nin aqoon-yahan ku nool magaalada Oslo iyo wadankiiba waana qurbo joog waana dalid joog marka xasan aad iyo aad baad mahadsantahay aad iyo aad mahadsantahay